السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها وضحايو اوفيشال وحان idin leeyahay waxay idin tahay wanaagsan. Okay, maanta موضوع inta oo soo fadhiistay wax kala ma ahan, waa موضوع idinka aad isoo weydiiseen su'aashiisa aan rabaa maanta inaan macnaha jawaabtiisa aan idin siiyo, taasoo ah macnaha wadaxaayo maxaa ku dhacay, sababta uu la maqan yahay maxay tahay. Okay, midaas haddii aan idin sheego sababta wadaxaayo macnaha uu la maqan yahay iyo waxa ku dhacayba wax kala ma ahan. Horta sidaad idinka ogtihiin qofkaan ogeynay hadeertaan ha ogaado wadaxaayo horta xag wuxuu u jiriyay ebel barnaamij waxbarasho xagga ayuu markaas wax ka dhiganayay jaamacadiin hadda inkastoo ay u tahay gabagabo hadeertaan wuxuu u fadhiisanayaa last examination calashaan imtixaankii ugu dambeeyay jaamacadiisa oo hadeertaan uu fadhiisanayaa wax kale lama maqna. runtii markii arday aad tahay imtixaan oo kugu soo food leeyahay waxaa ku qasban tahay in micnaha adiga hadafka aad leedahay aad culeyska aad saarto. runtiina waad ku mahadsantihiin 1001 jeer sida micnaha quruxda badan leh aad iisoo weydiiseen maqnaanshaha walaalkiin iyo waxa asiga ku dhacaybo. horta ninka adiga wuu caafimaad qabaa, wax ku dhacayna ma jiro. asbaabta uu la maqan yahay kaliya waxay tahay in ninkaas imtixaan uu kusoo food leeyahay runtiina imtixaankii ugu dambeeyayna ay tahay runtii marka imtixaan oo kugu soo dhow yahayna diyaar garow aad galaysaa soo maahane. ilaa haddii aad dhahdo youtube culeyska asaara haddii aad dhahdo imtixaankiina markaas aad wax culeys saari weyso runtii micnaha dadaalkaaga wuxuu noqonaa hal bacaad lagu lisay. runtiina aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin 1001 jeer. mar labaad ninka odiga waad ogtihiin inuu markaas uu joogay meel qurba ah uu la nool yahay dad ajaanib ah, dad markaas asiga oo dadkiisa oo markaas meesha la jooga ma jiro oo aan asiga ahayn. runtiina markaas arrimahaas jaamacadda oo markaas mashquul oo ku noqday wuu isoo wacay wuxuu dhahay inuu jaamacaddii imtixaankii last examinationka ay ugu soo foodle. runtiina walaalahii shalay toole dhiirigelinayay garabkayga taagnaa oo mar walbo micnaha isoo weydiinayay. waxaan jeclahay in micnaha san markaasi anigoo markaas waxba u sheegin inaan iska danaysto oo aan markaasi oo imtixaankaas isaga markaasi aan culeyska saaro oo markaasi ayagana aan wax la wadaagin. runtii way markaasi ugu adag tahay. dadkii shalay soo dhiirigeliyay meeshaan wehel la'aanta igu haysay wehel igu noqday maanta micnaha banaan cidlaha uguma tagi karo. waxaan kaa rabaa inaa adiga markaasi aad isii madadaaliso oo runtii video walba oo aad adiga sameysanaysid aad hore aan igu sameyso oo aan youtube-kaygiiniyo aan gacanta aan kaa saaro. inta aniga barnaamijyaadkayga aan kasoo dhamaysanayo waxaan rabaa walaalahay in markaasi aan anigoo waxba u sheegin oo iska aamusan inaan shib ka dhaho oo uploadkayga ay waayaan oo markaasi muuqayga ay waayaan. runtii way igu adag tahay midaas ma sameyn karo, laakiin waxaan kaa rabaa intii markaasi adiga karaankaaga ah inaad markaasi aad iigu sii dadaasho oo aad garabkooda sii taagnaato sida shalay garabkayga u istaageen inaad adigana beriga garabkooda aad u istaagtid. waxaan kaaga baahanahay waa intaas oo kaliya. runtii ani asigana waxaan ahay dad walaala ah dad meel kusoo wada koray. runtiina sababta uu la maqan yahay wax kala ma ahan, waa arrintaas. waxaan idinkaga rajaynaa anigana aan rajaynaa inuu markaas goordhow uu soo laaban doono insha allah asigoo nabad qabo oo caafimaad qabo. waxaan ku wada leenahay wadaxaayo tiimkaaga iyo anigoo wada jira waxaan ku leenahay noo soo laabo. kuleeto waxaan jeclahay inaad videogan adiga aad daawan doonto. waxaan ku leenahay tiimkaagii way ku xiiseen anigana waan ku xiisay. please come back, soo laabo adoo nabad qaba. idinkan waxaan idin leeyahay sidaa hadda aad u garab taagan tihiin weligiin u garab taagnaada. waa nin meel qurba ah ku nool, waa nin adiga dad ajaanib ah la nool. waxaan idin leeyahay mar walbo garabkiisa taagnaada oo ha ka caajisinaha inaad garabkiisa taagnaataan insha allah. madowna waxaa markaasi oo inoo soo wada surprisekaas wuxuu yahay aniga la hadeertaan asiga iima sheegin. wuxuu yidhi adi iyo tiimkaygo mar dhow waxaan idin soo wadaa surprise insha allah. waxaan ku leenahay surprise-kaagana wada sugeynaa inkastoo ani aad ila wadaagtay runtii surprise-kaaga waa sugi laahay. waxaan jeclahay idinkana inaad surprise-kaas aad ila sugi doontaan.
waana kaa wada sugaynaa insha allah hadduu ilaahay nafta noo dhaafo. waxaan ku leenahay adigoo nabad qaba noo soo laabo. okay videogan inaan kusii dheeraado ma rabo, kaliya micnaha su-aasha idinka soo weydiiseen inaan jawaabteeda aan idiin siiyo. aan intuu soo fadhiistay ninka odayga ah aan micnaha si wada jira aan ugu wada duceyno. commentiga haddii laga arko ducadiina in ninkaas walaalka ah imtixaankaas iyo waxbarashadii intaas uu soo waday in guusheedii oo markaasi uu gaaro. waxaan ku leenahay guuleyso guuleyso guuleyso, ilaahayna ha kuu fududeeyo imtixaanka adiga ku sugayo. runtii waa adag tahay micnaha in markaas imtixaan uu kaa qaado macallin ajnabi ah, dadka garabkaaga fadhiyaan ay kugu noqdaan dad ajnabi ah oo adiga markaasi kaligaa aad ka tahay meesha Soomaali. waxaan ku leenahay guuleyso, ilaahayna ha kuu fududeeyo, noo soo noqo adoo nabada. okay team Wadaxaayo Official waxaan idin leeyahay inta muuqaalka xiga ku kulmi doono barnaamij iyo barwaaqo nooli kulante.